waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idiin hayo calanka TV. qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka dhawaajiyay in albaabada laga soo xiray siyaasiyiintii mucaaradka ee doonayay inay dagaal iyo fowdo ka bilaabaan caasimadda Muqdisho. waxaan warka ku eegi doonaa gudoomiye Cumar Filish oo sheegay xubno qasoodayaal ah ay wali ku howlan yihiin in caasimadda ammaankeeda ay qalqalgeliyaan. gudoomiyaha oo hanjabaad culus u diray mucaaradka iyo siyaasiyiin oo ku sheegay inay lacag ku soo qaateen burburinta dalkan. ra'iisul wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo shirkii golaha wasiirada ka sheegay arrin cajiib ah iyo ra'iisul wasaare Roble oo aad uga carooday arrintaas. dood adag oo dhaxmartay golaha wasiirada iyo xubnaha shirka isaga baxay. barnaamijka ayaan ku eegi doonaa Mahdi Guuleed oo banaanka soo dhigay sirta ka dambaysa in Roble faraha la galo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. qodobada kale barnaamijka ku eegi doonana waxaa kamid ah madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariyo Qorqoor oo si degdeg ah ugu laabanaya caasimadda Dhuusamareeb xilli kooxaha mucaaradka ay wadaan abaabul xog badan ay ku doonayaan inay Galmudug ku dhaafsiyaan madaxweyne Axmed Kaariyo Qorqoor. fadlan haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqato channelkan subscribe dhaho oo furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. ayna ku bilaawno qodobadan. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa sheegay inay baajiyeen banaanbaxyadii waayahan dambe ee magaalada Muqdisho ka qorsheynayaan inay ku qabtaan mucaaradka dalka Soomaaliya. gudoomiye Cumar Filish oo hadlaya ayaa wuxuu hadalkiisa ku sheegay inay albaabada u soo xireen siyaasiyiinta mucaaradka ee doonayay inay dagaal iyo fowdo ka bilaabaan caasimadda Muqdisho. waxaana wararka ay ku eegi doonaa gudoomiye Cumar Filish oo sheegay xubno qaswadayaal wali ku howlan yihiin inay caasimadda amnigeeda qalqalgeliyaan. gudoomiye oo hanjabaad culus u diray mucaaradka iyo siyaasiyiinta ayaa sheegay inay lacag ku soo qaateen burburinta dalka. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar ayuu ka hadlayay baabulkii banaanbaxyaha maalmahan mucaaradka ay ka wadeen caasimadda isagoo sheegay inay ka guuleysteen kooxihii abaabulayay oo banaanbaxaas ay baajiyeen. gudoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in midowga musharaxiinta shirkii golaha wadatashiga qaranka u gudbiyeen wixii tabasho ay qabeen balse kooxo gaar ah ay bilaabeen banaanbaxyo oo sheegay meesha ay ku dambeyn doonaan ilaa la garanin oo ay ku doonayaan inay ku qalqalgeliyaan ammaanka caasimadda. gudoomiyaha ayaa ku eedeeyay qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka inay dalal shay lacag uga soo qaateen sidii ay caasimadda fowdo iyo qallaaso uga abuuri lahaayeen. gudoomiye Cumar Filish balse wuxuu sheegay inay gacan biro ku qaban doonaan cid kastoo isku dayda inay wax u dhibto xasiloonida dalka. gudoomiyaha ayaa ku dhawaajiyay in durbaba laga dareemayo dalka lacagihii imaaraadka laga keenay sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale gudoomiyaha ayaa wuxuu u mahad celiyay odayaasha dhaqanka ee gobolka sidii iyagana doorkooda uga qaateen ee dhexdhexaadnimo. sidoo kale gudoomiyaha wuxuu u mahad celiyay dhalinyaradii ka waantowday banaanbaxaas qorshaysnaa ay ku doonayeen inay danahooda ku gaaraan mucaaradka. ra'iisul ku-xigeenka ayaa sheegay in xukuumadda xilligan aysan heshiis arrimo dibadeed la geli karin dowlad shisheeye isagoona ku sheegay in xukuumadda ay tahay xilgaarsiin balse waxaa arrintaasi ka carooday ra'iisul wasaare Roble oo u arkay mid isaga lagu duraya maadaama aysan isku aragti ahayn. Roble ayaa sheegay in heshiisyada ay galayaan ay ugu dambeyn doonaan oo ugu daneyn doonaan ummadda Soomaaliyeed. ra'iisul Roble ayaa wuxuu sheegay heshiisyadaas ay gali doonaan inay u ahaan doonto kuwa lagu dhisayo horumarka Soomaaliya cid kasta ay u arkaan inay horumarka Soomaaliya ka shaqeyn doonto ay la gali doonaan. qodob kale barnaamijkan ku falanqeyn doona waxaa kamid ah madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor ayaa wajahayo mucaaradad aad u badan kadib markii siyaasiyiin badan oo Galmudug ah ay xilal ka soo waayeen Axmed Kaariyo Qorqoor ee lagu xaqliyo inuu la jiro Faad Yaasiin iyo Farmaajo. Axmed Kaariyo Qorqoor ayaa wajahayo mawjado siyaasadeed oo uga imaanaya siyaasiyiinta reer Galmudug oo iska xulafaysi ah sida ay karkaarka u idaari lahaayeen Qorqoor iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal. wararku waxay sheegayaan inay siyaasiyiintaasi horkacayaan Axmed Macalin Fiqi oo xil ka soo waayay Galmudug iyo waliba siyaasiyiin kale oo u arka inaysan xil ka soo heli karin waqtigan Galmudug. Axmed Kaariyo Qorqoor ayaa hore wuxuu u wajahay mucaarad hubaysan oo kaga hor imaadeen ururkii Ahlusunnah wal Jamaaca oo iyaga wali ka ah dibad joog caasimadda Galmudug ayagoo xilli kastana laga filan karo inay ku soo laabtaan caasimadda.